lama galaay goobo aan dadkii galay dib loo arag. Kenny Fitch wuxuu ahaa 44 jir reer Maraykan ah, YouTuber xiiseeya dalxiiska iyo safarka, soona duuba vlogs kala duwan oo si joogto ah u soo geliya channelkiisa YouTube-ka. Waqtigiisa ugu badan wuxuu muuqaalo ka soo diyaarin jiray dhulka lama deegaanka ah ee Mojave Desert. Buuraha ayuu fuuli jiray, godadka ayuu geli jiray, sidoo kale kaymaha cidlada ayuu maalmo ku maqnaan jiray. Muuqaalada uu soo duubo wuxuu si xiriir ah ugu soo gudbin jiray bartiisa YouTube-ka iyo akoonnadiisa kala duwan ee baraha bulshada. Mararka qaar waxaa raaci jiray saaxiibadii, halka marar badan uu keligii bixi jiray. Lama deegaanka Mojave ee uu muuqaalada ka soo duubi jiray wuxuu in yar u jiraa xerada aadka loo ilaaliyo ee ciidamada cirka Maraykanka. Waa aagga caan baxay ee loo yaqaan 51 ama Area 51 oo ay inta ugu badan ka dhacaan sheekooyin la yaab leh oo ay ka mid yihiin in lagu arkay suxuunta duusha ama ay ku sugan yihiin noolayaal ka yimid meel ka baxsan adduunka. Haddaba taariikhdu markay ahayd 12 bishii Afraad 2014 ayuu bartiisa YouTube wuxuu soo geliyay muuqaal uu kaga warramayo aaggan iyo dhacdooyinkan aan la macnayn karin ee ka dhaca. Farsamo yaqaan u dhashay aagga 51 oo daaha ka rogay siro badan ayuu ciwaan uga dhigay muuqaalkiisa. Muuqaalka hoostiisa ayuu ku qoray faallo ama commenti, wuxuuna yidhi muddo aad u dheer ayaan fuuli jiray buur walba oo aan arko, sidoo kale aan geli jiray god walba oo ay isheedu qabato. Waxaan arkay god qarsoon oo ku yaala aagga 51. Afkiisu wuxuu u samaysan yahay sida xarafka ma. Godkan markii aan isku dayay inaan galo, jirkayga oo dhan ayaa jirco lagu jabiyay. Gariir laleema iyo ruuxan ayaan dareemay. Mar walba oo aan xagga godka tallaabo u qaado, gariirka jirkaygu wuu sii badanayay ilaa aan gaadhay heer aan tallaabo hore u qaadi kari waayo. Wuxuu dareemay in ay godka ku jiraan wax diidan inuu hore u sii socdo. Bannaanka ayuu uga soo baxay, wuxuuna ku tilmaamay dhacdadan tii ugu yaabka badnayd ee soo martaa. Kenny Fitch dad badan ayaa ribilay u soo galay, kuna dhiirigeliyay inuu qori iyo kamera qaato oo uu dib ugu noqdo godka ma. Dadka qaar ayaa fulinimo ku eedeeyay, halka kuwa kale ay ku sheegeen inuu yahay beenaale fiyuus doona ah. Ugu dambeyntii 18 bishii tobnaad 2014 ayuu soo geliyay muuqaal ugu magac daray gelidda godka ma. Muuqaalkan ayaa helay views ka badan 2,500,000. Xasuusnow daawade, kanaalka Kenny Fitch ma gaarin 50k oo subscribe. Sidoo kale muuqaaladiisa oo dhan xataa kuma jiro mid la daawaday 500,000. laakiin muuqaalka ku saabsan godkan wuu caan baxay. Wuxuuna sheegay inuu raadiyay godkii ma, laakiin uu ilaa hadda la'yahay meesha uu ku yaalay. Wuxuuna ballan qaaday inuusan ka hadhi doonin ilaa uu video dhammaystiran ka soo duubo. Inta ugu badan dadkii daawaday muuqaalkiisa waxay ku dhiirigeliyeen inuu godka soo helo, marka laga reebo hal qof oo uu sheegay inuu faraha kala baxo godkan, isagoo ugu hanjabay haddii uu galo godkan inuusan ka soo bixi doonin. Waxaa yaab leh qofkaas magac ugu qoran inuu ahaa Lemmy Kilmister oo macnaheedu yahay ii ogoloo mudana inaan ku dilo. Kenny Fitch ayaa weydiiyey waxa uu uga jeedo hadalkiisa, laakiin Lemmy Kilmister uma jawaabin. Hal bil kadib 10 bishii 11 2014 Kenny Fitch wuxuu ka soo ambabaxay gurigiisa si uu markii saddexaad u baadigoobo godka ma. 14 November waxaa la waayay Kenny Fitch meel uu jaan iyo cirib dhigay. Moobilkiisa waa xiran yahay, waxaana la ogaa inuu u baxay baadigoobka godkii looga digay. Saaxiibadii ayaa la xiriiray booliska, waxaana la bilaabay in laga raadiyo aaggii uu sheegay inuu ka baarayo godka ma. Baadhitaan dheer kadib waxaa la helay moobilkiisa oo yaalla afaafka hore ee mid ka mid ah godadkii lagala soo bixi jiray dhuxul dhagaxda. Wuxuu ahaa god qadiimi ah oo aad u dheer, una qodan sida ceelka. Waxaa loo maleeyay inuu ku dhacay. Si loo eego gudaha ceelka, waxaa la diyaariyey kamera iyo xarig dheer bal in la arko in qof ku dhacay, laakiin nasiib xumo waxba lagama helin. Waxaa la yaab leh moobilka meesha laga helay laguma arag wax raad ah. Moobilkana wuu nabad qabaa oo xariiqi ma gaadhin. Marka laga yimaado moobilkaas, lama arag wax kale oo ka mid ah qalabkii, dharkii ama xataa kabihii uu watay. Ilaa hadda lama hayo cid wax koog ama meel ku sheegta. Laga bilaabo 10 bishii 11 2014 oo ku beegan maalintii uu baxay baadigoobka godka noloshiisa galaaftay. Taas waxaa ka daran commentigii Kenny Fitch uu kaga warramayay godka ma in laga masaxay barta YouTube. Dhammaan dadkii commentigaas arkay waxay soo qoreen aaway faalladii Kenny Fitch, maxaa loo masaxay. Hataa ninkii u hanjabay ee Lemmy Kilmister commentigiisii waa la baabi'iyey oo dib looma arag. Daawade, arrintani waxay dhalisay su'aalo badan oo ka yimid dadkii ku xidhnaa kanaalkiisa. Qayb ka mid ah ayaa ku eedaysay dowladda Maraykanka in ay ku lug leedahay ama wax ka og tahay waayitaanka Kenny Fitch.
boqolaal barnaamij oo ka warramaya dhacdadan ayaa lagu faafiyey internetka. dalxiisayaal iyo followers kala duwan ayaa isku dayay inay raadiyaan godka Cave. nasiib darro, dadaaladaas oo dhan waxay ku dhammaadeen fashil. ilaa hadda idinama helin god leh tilmaamihii uu sheegay Kenny Fitch. inta aynan dhammayn muuqaalka, waxaa jira hub casri ah oo ay haystaan qaar ka mid a dowladaha horumaray, kaas oo qofka ku furaya laysar ama mawjado koronto oo kor u qaadaya heerkulka garaaca wadnaha qofka. waxaa xusid mudan in ciidanka China ay sanadkii tegay hubkan u adeegsadeen ciidanka ilaalada xadka dalka India. sidoo kale ay ku tijaabiyeen shaqaalaha Mareykanka ee ka howlgala safaaradda Ecuador. haddii aad jeceshahay hubkan inaan kasoo diyaarino muuqaal gaar ah, fadlan hoos nagula wadaag fikirkaaga. ha ilaawin inaad channelka subscribe saarto, gambaleelkana furato, muuqaalkana aad like la gaadho. nabaadiinu. lama galay goobo dadkii galay aan dib loo arag. qaybteeda labaad. jasiiradda Boulder waa mid ka mid a jasiiradaha yaryar ee Mareykanka. waa jasiirad aad uga fog guud ahaan dhulka beriga ee gobolka Alaska oo ay ka tirsan tahay. waa mid ka mid a tiro jasiirada oo u xiriirsan sida silsilada oo kale, kuwaas oo ku teedsan badyeeraha Bering ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Ruushka. waa lama degaan aan cidi ku noolayn. jasiiradda ugu dhow ee aadana ku nool yahay waxay u jirtaa 80 kiilomitir. waa meel aad u qabow, gaar ahaan xilliga xagaaga. faa'iidada kaliya ee lagu qabaa waa inay martigelisay mid ka mid a xarunta saadaasha cimilada. haddaba sanadku markuu ahaa 1944, ciidamada Mareyniska ee Mareykanka ayaa u diray unug ka kooban 5 askari si ay u ilaaliyaan xarunta saadaasha hawada ee Mareykanka ugu taalla jasiiraddan. haddaba ciidankaas waxaa ka tirsanaa askariga ay sheekadeenu ku saabsan tahay maanta. waa Carl Houston. waxa uu kusoo biiray ciidanka badda sanadii 1942. wuxuu ka shaqayn jiray warshad lagu sameeyo doomaha. wuxuuna ahaa kalluumaysta xirfad badan oo aanay celin karin cimilada adag iyo hirarka kacsan ee barafku ku lamaan yahay. waxa uu ahaa shaqsi jir ahaan iyo xirfad ahaanba ku habboon inuu ka shaqeeyo jasiiraddan leh cimilada xagjirka ah. bishii Oktoobar 1944, Houston iyo saaxiibadii waxay bilaabeen gudashada shaqadii loo diray oo uga dhignayd shaqo aad u fudud oo la mid ah dalxiiska. sababtoo ah waqtigaas waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka oo ay ku naafuwaayeen in ka badan 85 milyan oo ruux oo u dhigantay 4% dadkii markaas dunida ku noolaa. shaqadoodu waxay ahayd inay jasiiraddan degaan, isla markaana kormeer joogtaa ku sameeyaan xarunta saadaasha cimilada. markii muddo la joogaba waxay ku soo wareegeen dhismaha, kadibna gudaha ayay iska gelayeen. halkii kormeer waxa uu qaadanayay 10 ilaa 15 daqiiqo. waxay haysteen waqti aad u badan oo ay jasiiradda ku kala bartaan. marka ay caajis dareemaan, waxay ku dalxiisaan dacallada jasiiradda oo shantooda mooye cid kale aysan kugu helin. 5 bilood markii ay joogeen, khalaas warkoodu waa dhan yahay. shaqadoodu waxay noqotay mid fudud oo aan hawl iyo dhibaato midna lahayn. taaka ayay u kala barteen jasiiraddii, sababtoo ah dhererkeedu waa 7 kiilomitir oo keliya, ballaceeduna kama badna 4 kiilomitir. Houston waxa uu saaxiibadii ka codsaday in kormeerkan markan keligii loo dhaafo, wayna ka aqbaleen. qorigiisa ayuu qaatay, bannaanka ayuuna u baxay. saacad 2 iyo 3 ayaa tegay, mana soo noqon Houston. sida aynu hore u soo sheegnay, kormeerku ma qaato wax ka badan 15 daqiiqo. waa bishii March, qorrax diiran ayaa jirta. jasiiraddu ma lahan wax baraf iyo qabow ah, dabaylo, ceeryaamo iyo cimilo gadoon kalena ma jiro. saaxiibadii waxay bilaabeen in ay baadhaan, laakiin nasiib xumo, meel uu jaan iyo cirib dhigay lama hayo. jasiiraddu ma laha wax dhir ah oo kala qarisa dadka ku sugan. gees waxaa ku taalla xarunta saadaasha hawada, halka geesta kale ay ku taalla buur. qofka xarunta joogaa wuxuu arki karaa buurta, halka qofka buurta fuulaa uu u jeedo dhammaan jasiiradda oo dhan. markii ay ka quusteen saaxiibkood, waxay fariin u direen taliskii ciidamada badda, waxayna u sheegeen in saaxiibkood aan lahayn. si degdega ayaa looga soo jawaabay baaqa ka yimid jasiiradda, waxaana loo soo diray ciidan ku qalabaysan diyaarado, maraakiib iyo doomo si Houston looga soo baaro beriga jasiiradda iyo badda ku hareeraysan. nasiib xumo, boqolaalka askari uma suurtagelin inay soo helaan Houston, oo sidaas ayay ku waayeen. 43 sano kadib, sanadku markuu ahaa 1988, arday jaamacadeed oo cilmi baaris ku samaynaysa kalluunka iyo shimbiraha xeebaha ayaa tegay jasiiradda Boulder. waxayna teendho ka dhisteen oogada sare ee jasiiradda Boulder. waa buur dhererkoodu yahay 490 mitir oo ay dusheeda ka arki karaan inta badan dhulka jasiiradda. maalin maalmaha ka mid ah, hogaamiyaha tiimka oo ku sugan buurta korkeeda ayaa dul istaagay dhagax weyn. dhagaxa dhinaciisa waxaa uga muuqda dillaac aan sidaas u weyneyn oo hoos u qodan, waxayna la noqotay in meeshan ay wax ku jiraan. wuu ku dhowaaday
si uu u hubsado shakiguna uu uga baxo. Ma dhaba waxay indhihiisu arkayaan? haa, waa qolfoof bini'aadan, waa qof xidhan direys ciidan, waa Carlo Houston, askarigii la waayay 43 sano ka hor. Tobanaan su'aalood oo aan jawaab loo hayn ayaa la isweydiiyey. Muxuu ka doonay buurta? waxay ahayd inuu hal mar ku wareego xarunta saadaasha hawada. Muxuu u soo socday keligii in ka badan 7 kiiloomitir? Muxuu ka doonay oogada sare ee buur dhererkoodu yahay 490 mitir? haddiiba ay jirto sabab ku kaliftay inuu socdo 7 kiiloomitir uuna fuulo buur leeg 490 mitir, maxaa ku qasbay inuu galo dilaac yar oo cidhiidhi ah? haddii uu khatar dareemay ama uu weerar la kulmay, soo ma ahayn inuu qorigiisa isticmaalo ama uu yaraan hal xabba rido si ay saaxiibadii ugu soo gurmadaan? sidee ayay boqolaal ciidan uga heli waayeen saaxiibkood jasiirad yar oo dhererkoodu aanu ka badnayn 7 kiiloomitir? waa su'aalo badan oo aan jawaabtooda la helin ilaa maanta. haddaba maxay kula tahay adiga? fadlan hoos nagula wadaag fikirkaaga. sidoo kale ha ilaawin inaad ku soo biirto kanaalka, furo calaamadda gambaleelka si muuqaaladuna ay kuu soo gaadhaan. muuqaalkana like saar. mahadsanid. lama galaay goobo dadkii galay aan dib loo arag ama naftooda ku waayay. qaybteeda 3aad. hadhaagii daynasoorada. Komodo Dragon. Indonesia waa dowlad dhacda koonfurta bari ee qaaradda Aasiya. waa dalka kooban silsilada jasiirada ah oo tiradoodu dhan tahay 17,508 jasiiradood. haddii la cabiro dhererkoodu waa 5,000 oo kiiloomitir. si loo fahmo dhererka jasiiradahan, waxaan tusaale ahaan u bixin karnaa inta ay isu jiraan magaalooyinka Muqdisho iyo Qaahira, labada caasimadood ee wadamada Masar iyo Soomaaliya. Indonesia waa dalka kaliya ee dabeecadaha noocaas leh dunida oo dhan. inta ugu badan jasiiradahan waa kuwa aan dad ku noolayn. haddaba daawade, waxaa jirta jasiirad ka mid a jasiiradahaas oo u muuqata inay cidlo tahay. waxay Australia u jirtaa 2,500 oo kiiloomitir. jasiiradan waxaa ku nool xayawaan la odhan karo waxay ka soo jeedaan ama waa hadhaagii xayawaankii dabargo'ay ee daynasoorka. waa ugaadhsada halis badan oo hilibka quuta. dhererkiisu waxa uu gaaraa 2 mitir iyo 60 sentimitir. miisaankiisuna waxa uu gaaraa 91 kiilo. wuxuu awood u leeyahay inuu dhiigga ka uriyo meel gaaraysa 9 kiiloomitir. dadka ku nool jasiiradan dhagxaan waaweyn ayay dusha ka saaraan xabaalaha dadka ka dhinta si aanay xayawaanadani ula soo bixin marxuumka. waa xayawaan dilaa ah oo qaniyadiisa keliya loo dhinto. runtiina ma aan xayawaan sida libaaxa ku kala goyn kara hal mar, ama sida shabeelka dagaal la gala xayawaanka uu ugaadhsanayo ilaa inta ay naftu ka baxayso. ee waa xayawaan hal mar qanina dhibanaha uu cuni doono, meel dhowna ku suga sida sarkaalka inta ay naftu ka baxayso. daqiiqada kooban ayay suntiisu ku dili kartaa xayawaanka uu qaniinay. si xad dhaaf ah ayuu xayawaankani u cunaa hilibka noolaha. halkii maalin wuxuu cuni karaa hilib dhan 73 kiilo, waana wax u dhigantay 80% miisaankiisa guud. ma jiro xayawaan aysan cunin, sababtoo ah waa mid ka mid a xayawaanada loo yaqaano berri biyoodka. wuxuu isku si uga ugaadhsan karaa badda iyo berrigaba. tan ugu daran ayaa ah inuu dhirta xataa fuuli yaqaano. waxay u muuqataa inaan meelna looga baxsan karin. isagu xataa isma nabadgeliya xayawaankani. midkooda gaajooda wuxuu cunaa kan uu ka tamarta badan yahay, si gaar ah dhasha yaryar oo dhaqankeedu yahay in aanay bannaanka u soo bixin ilaa inta ay ka korayaan, si ay uga badbaadaan kuwa waaweyn ee cunaya. xayawaankan waxaa loo yaqaanaa Komodo Dragon. jasiiradda uu ku nool yahayna waxaa loo yaqaanaa Komodo Island ama jasiiradda Komodo, waana deegaanka rasmiga ah ee uu dunideena kaga nool yahay xayawaankani. waa jasiirad loo dalxiis tago. dad badani waxay u aadaan si ay noloshooda mar keliya u soo arkaan Komodo Dragon, si dalxiisayaasha looga badbaadiyo khatarta xayawaankan. waxaa loo sameeyey seere ama deyr maxmiyad ah oo lagu ilaaliyo lagagana ilaaliyo dadka. waxaana loo diyaariyey shaqaale loo carbiyey xakamaynta xayawaankan. keligood ayaana fasax u qabay inay gudaha u galaan siligan. haddaba sanadku markuu ahaa 2009, kalluumaysta reer Indonesia ah oo lagu magacaabo Maxamed Anwar, da'diisuna ay tahay 31 sano jir, kana mid ahaa dadkii ku noolaa jasiiradan, ayaa isku dayay inuu gudaha u galo seeraha lagu ilaaliyo xayawaanka Komodo Dragon. ujeedkiisu wuxuu ahaa inuu geed u dhow siliga uu dhaqso kaga soo goosto tufaax bislaaday oo uu hunguri ka qabtay, isla markaana uu si degdeg ah uga soo baxo meesha khatarta ah. hareeraha ayuu iska eegay inta aanu gelin gudaha si uu isaga hubiyo haddii uu jiro xayawaanka agdhow. nasiib xumo kumuu xisaabtamin in dhererka cawska ka baxay beertan xidhan uu qarin karo xataa 10 xayawaan. si fudud ayuu siliga u fuulay. waxaase arkaysay gabadh lagu magacaabo Teresa Tawa oo ka mid ahay dalxiisayaashii ku sugnaa goobta. waxay isku dartay orod iyo qaylo si ay uga celiso khatarta uu ku socdo, laakiin saaxiibkeen dhag jalaq uma siin. gudaha ayuuna u galay. waxay soo ag istaagtay seerihii si ay uga digto haddii ay aragto xayawaanku soo socda. Maxamed isla markiiba wuxuu fuulay geedkii midhaha lahaa, wuxuuna urursaday tufaax badan. qadar baa qornaaye hal tufaax oo ka fog ayuu ka tegi waayey. wuu tiigsaday, laakiin nasiib xumo wuxuu ka soo dhacay geedkii uu saarnaa. cawska dhexdiisa ayuu ku soo dhacay.
Teresa oo markii hore indhaha ku haysay ayuu ka qarsoomay inuu soo kaco soona baxay ayay sugaysay, laakiin uma muuqdo. kaliya waxay u jeedaa cawska oo xoog u dhaqdhaqaaqaya. waxay garatay in ugaarsadii halis badnaa uu soo gaadhay goobta. waa laba ka mid a xayawaanka Komodo dragon oo soo uriyey dhiigga Anwar kadib dhaawac yar oo ka soo gaadhay geedkii uu ka soo dhacay. waxay bilowday inay u qayliso istaafkii iyo shaqaalihii beerta si ay u badbaadiyaan Anwar. waa shaqaale u tababaran in ay xayawaankan xakameeyaan, dadkana ka badbaadiyaan. markii ay gudaha u galeen, waxay arkeen Maxamed oo dhowr qaniyo jidhkiisa ku taallo. cusbitaalka ayaa loola cararay, laakiin nasiib xumo jidhka ayuu ku geeriyooday. jasiiradda Komodo waa goob dalxiis oo dunida oo dhan looga daawasho tago, laakiin dalxiisayaasha waxaa looga digaa inay galaan aagga xidhan ee khatarta ah. haddii aad niyadda ku hayso inaad booqato meeshan ama aad caga dhigato beriga jasiiraddan, iska jir inaad ka talowdo xuduudda. raac talooyinka iyo tilmaamaha lagu siiyo. wax ku qaada sheekooyinka ka warramaya khatarta xayawaankan ee ay ka mid tahay sheekadeenna maanta. daawade, waxaynu soo gaarnay gabagabadii muuqaalkeenna. fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka, soo dhowo oo sabskrayb saar. sidoo kale haddaad hore inoola joogtay, ka qayb qaada muuqaalkan inuu sii faafo oo layg saar, saaxiibadana la wadaag. mahadsanid.